sidii halkan laga wada cadeeyay goluhu marnaba muxuu ahaayay kama hadal mana diidin cashuurta maxaa yeelay qof kastaba oo moogtahay muwaadin ah waa mid waajib ku weeye sida uu dastuurku qirayo sida muxuu ahaa shuruucdeenu ay markaasi ay sheegayso marka mid kaliya laga hadlayay waxay ahayd guna xileedyada in muxuu ahaayay la iswaafajiyo kaliya ay markaasi ay ku saabsanayd oo ah in guna xileedyada qaarkoodna ay cashuur bixiyaan qaarkoodna aan cashuur bixinin marka sidii la isku waafajin lahaa in muxuu ahaayay laga sameeyo nidaam koobayo oo muxuu ahaayay dhammaan lagu wada dabaqo lagu wada dhaqmo dhammaan muxuu ahaayay guna xileed qaadato dhani dhammaan muxuu ahaayay mas'uuliyiinta dawladda oo dhani ay markaas ay ka siman tahay taas baa la doonayay oo nidaam muxuu ahaayay sharci oo cashuur bixineed oo faahfaahsan arinta lagu soo faahfaahiyo markaasi ku meel gaar ah ayuu markaa muxuu ahaayay guddigu u hakiyay inta laga soo sameeyay sharci dhameystiran oo muxuu ahaayay arintaasi faahfaahinaya kadib markaynu dooda ka yeelanay iyo xaaladda dalkeenana guddigu isagoo wasaaradda la fadhiistay oo aflanqayn dheer ka sameeyay go'aano iyo soo saaray oo loogu bedeli doono qaraar loo bedeli doono kaasi markaasi waxay noo akhri doonaan u yeedhayaa xildhibaan Dubays tafadhal سند قدومية قدوم كقولها برلمانك شرفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. سلام كدب سيدا أو شيء حلبان علمي وحانو halkan ku soo diyaarinay soo jeedintii guddiga maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda ka kulmeen oo aan ku soo koobnay sifooyinkan ku qoran halkan sharciga ah soo jeedinta guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah kuna howlgelaya go'aankii golaha shacabka ee kalfadhigii labaad kulankii 11aad ee 20kii bishii 11aad 2017 kulankaas oo ku saabsanaa soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee cashuurta gundhuxileedka dawladda sida ku xusan warqadda sumadeedu tahay MOF/OM/897 kuna taariikhaysnayd 9 November 2017 guddigu isagoo tixraacaya qodobka 24aad ee dastuurka dalka xarafka ha iyo sharciga lambar 2 ee cashuuraha dalka ee xeerinaya cashuurta waajibka ah soona baxay November 1966 guddigu wuxuu kulan degdeg ah la yeeshay falaqayn dheerna la sameeyay wasaaradda maaliyadda arrinta cashuurta gunnooyinka oo goluhu farsamo ahaan uga hakiyay ku noqoshadii qoondada miisaaniyadda ee 2017 taasoo goluhu meel mariyay bishii August 2017 isla markaana guddigu wuxuu tixgeliyay heshiisyada ay xukuumaddu kula jirto hay'adaha lacagta adduunka IMF haddaba guddigu markuu dhageystay talooyinka ay soo jeediyeen xildhibaanada kalfadhiga labaad kulankiisii 11aad ee 20kii bishii 2017 markuu arkay qodobka 69aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka kuna saabsan wax ka beddelka miisaaniyadda 2017 wuxuu golaha sharafta u soo jeedinayaa inuu ansixiyo qodobada soo socda in dhammaan gundhuxileedyada la siiyo mas'uuliyiinta dawladda laga jaro cashuur bileedan 8% laga bilaabo October 2017 marka laga reebo qaybaha sharciga lambar 2 ee 1966 tilmaamay 2 in wasaaradda maaliyaddu dib u eegis ku samayso shuruucda jirta ee cashuuraha waafajiyaan nidaamyada casriga ah ee maamulka iyo maaliyadda 3 xeerka miisaaniyaddu waa xeer maaliyadeed sanadla ah waxa wax ka bedeli kara oo kaliya golaha shacabka marka soo jeedin ay ka timaado xukuumadda ama golaha shacabka ayadoo loo marayo habraaca sharcigu tilmaamay 4 guddigu waxa kale oo soo jeedinaya in xukuumaddu diyaariso xeer nidaamiye qeexaya gundhuxileedyada baarlamaanka federaalka si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka oo dhaqan gala sanad miisaaniyaedka 2018 ee ku soo aadan 5 guud ahaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxaa la farayaa in miisaaniyadda u dhaqan galiyaan sida ku cad go'aanada golaha shacabku ansixiyay 6 qaraarkan wuxuu hirgelayaa marka uu ansixiyo golaha shacabku waxaana ku rajo weynahay in golaha shacabku ansixiyo soo jeedintan ilaah baa mahad billahi tawfiiq mahadsanid mudanayaal warbixintu waa dhegaysateen waxaynu ku fadhidaa doodii shalay ee daraad ahayd waxaan soo jeedinayaa in marka haddii ayna dood ka jirin
إن شاء الله حكينتا ديار قرور حكينتا تقصدها. نعم تفضل أستاذ. mudane gudoomiye anigu waxaan u qabay hadaanan khaldanayn arrinka kaliya inuu ku soo koobo soo jeedinta golaxileedyada in lagu soo koobo kaliya ma ahayn waxaan qabnay in laga doodaayo miisaaniyadda waxaan ka qabnaa arrimo badan oo koonseen aan ka qabno dood in halkaa ay ka socoto kadibna arrintan ay soo gelaysaan moodeen arrinta ma waxa kaliya lagu soo gabagabeeyay iga su'aal waaye golaxileedka guddigii iyo bas ay ku soo heshiiyeen kadib saas ma ku ansixinaynaa miisaaniyadii doodeeda galeynaa intaas ayaan soo jeedinaa miisaaniyada doodeeda weli lama gelin raalli ahaada miisaaniyada doodeeda lama gelin waa la keeni doonaa tan waxa weeyaan arrintii oo cashuuraha la isku haystay oo keliya weeyaan oo cashuurta keliya maaha miisaaniyada waad mahadsantii raalli ahaada aan cod gelino mudanayaal soo jeedinta guddiga cid xildhibaanla inta ogol min fadlakum inta ogol soo jeedinta guddiga maaliyadda inta ogol soo jeedinta miisaaniyadda soo tiriya soona dhaqsada inta ogol soo jeedinta guddiga maaliyadda mahadsanidin dejiya inta diidan soo jeedinta guddiga maaliyadda inta ka aamustay mahadsanidin dejiya xisaabta dhaqsiyo keena wax diiday ma jiraan waxa ka aamusay 3 waxa ogolaaday 149 saa daraadeed soo jeedintu waa ansax xukeynta waxaan ka codsanayaa in ay u soo rogto qaraar aanu yeero wasiirka maaliyadda hadduu laba eray meesha ka dhahay waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkii shalay aan yeelanay guddida maaliyadda oo waqti dheer aan ku falanqaynay waxa inoo dana waxaan ku faraxsanahay inaan waxaan ku wada kalsoonahay idinkeeno waxa kale oo aad aan ugu faraxsanahay gudoomiyeen maanta halkan gacanta loo wada taagay waxaan u maleynayaa arrintaasi waa arrin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay shaqooyinka anaga noo yaala ee halkan la nagu farayna waa soo samaynaynaa waqtiga loogu talagalayna waa ku soo samaynaynaa haddii ay beedmo aad iyo aad baad u salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaraarkaasi wuu ansaxay waxaanse aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in baraha maxaa layidhahdaa folbog ishag baraha bulshada dood badan iyo arrimo badan oo marta aflagaada badan ay ka dhacday arrintaasi golaha shacbiga ma diidin canshuur hoosta laga xariiqo golaha shacabka wuxuu raadinayay inuu saxo cashuuraha laga qaadayo gudnooyinka ay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda ay qaadato in la saxo canshuurtooda meel la dhigay ay ahayd ma aha arrin sida ay u rogrogeen iyo sida qaabka daran ay u sheegeen fidnoolayaalka oo baraha bulshada waxyaabaha qaarkood dhiga aad baad u mahadsan tihiin aan galno qodobka labaad ismaqlaynaa walaalayaal barlamaankan kale inta ka furmi maxaa waaye raalli ahaada xildhibaan xidig noo raalli ahaw aanu gudubno qodobka labaad oo ahaa qaybinta waxaa laydin qaybshay waxaa codsi aad idinka yimid ahaa sida xisaab celinta $100 laga jarayay oo daryeelka degdega ahaa waa laydin qaybshay cid ka dood qabto ma jirta tafadal waay soo qora inta rabta inay ka hadasho alugu qora ay kaad okay aanu yeero xogayaha guud oo noo fasira arrintan waxay ku saabsan nidaam aan dhageysano xogayaha guud xogay waxaan rabaa in yar oo hordhaca ama introduction inaan idinka siiyo sida loo soo diyaariyey xisaab celintan waxaan u soo diyaarinay bogoska ugu sarreeya waa soo koobid yani inta ugu horeysa waa soo koobid accountka wixii lacaga ee ku soo dhacay lacagaha ku soo xirooda accountka 968 bilood weeyi oo markiiba ay soo gasho 72500 marka intaa way ka badan lahayd laakiin 6 bilood baanan mishaar la siin xildhibaanada marka taasi kuma jirto wixii ku soo dhacay kaliya weey
marka ilaa hadda waa 41 bilood waxay noqotay 1 milyan 127,300 waxaa jirtay oo iyadna accountka ku soo dhacday gabadh Soomaaliyeed oo Kenya dabaq ka soo dhacday oo xildhibaanadu lacag iska ururiyeen dheeraada lacagta ay iska ururiyeen ee ugu deeqeen wuxuu ahaa waxay noqotay 5,500 taasi waxay noqotay dakhli soo galay accountka ku soo dhacay xisaabtii sii kordhiyay okay waxa jirta mar aan lacag la'aan xunintay nagu dhacday wasaaradda maaliyadda 35,000 ay nagu caawisay si loogu bixiyo dadka jirran ama qofkii dhintay 35,000 taasi wasaaradda maaliyadda ka lacagta ka soo xirotay accountka marka la isku wada geeyo waxa weeye 1,168,000 lacagta laga isticmaalay accountka ilaa maanta waa 1,158,771 haraaga yaala waa 17,000 marka waxa uu qaybsan tahay dhowr madaxa ugu horeeya waxa weeye xildhibaanadii geeriyooday waxa inoogu dambeeyay daahir xaaji geelle Abbas Abdullah Siraaji Saciid Xasan Geedi iyo Bootaan Ciise Cilmi ayaa ugu dambeeyay waxa inoogu xiga qaybta labaad kharashaadka ku baxay xildhibaano jirran baa jiray oo iyagoo sayniska jooga wada jirraday xanuunna waaweyn ku dhaceen oo wax laga qaban kara aan lahayn oo dhacay dadkii markaasi kharashaadkii ku baxay xildhibaanada jirrana taasoo badanaa ansixinayeen guddiga joogtada ansixinayay wixii waxa la siinayo inta badan waxa ku xiga kharashka lagu bixiyay dhaawacii markii halkan la soo weeraray dhimasho iyo dhaawac baa yimi marka kharashkii dhaawacii iyo dhimashadii dadkii ku dhaawacmay saraakiisha ku dhimatay shaqaalihii ku dhintay aduu yani qofkii dib ka soo gaadhay oo xildhibaanada cid walba ku jiraan iyadana waa qayb gaar waxa kaloo jira xildhibaano dhintay intaanan qaaraanka la bilaabin horteed ayaa jiray oo in la maaragtay la yidhi loo gartay inta la fariistay guddiga joogtada gartay 15,000 hala siiya xildhibaanada oo golaha iyaga kamid ah intii aan la bilaabin horteed yar bay dhinteen oo isla golaha ay hayeen marka gabigeedu intaas oo qaybood ayay u qaybsan tahay in si fiican loo akhristo lana eego waa maasantiin dhageysiga maadsanidin marka waa laydin qaybiye ka soo baaran dega hal maalin baan u qabsanay doodeeda maadaama ay dheeranayso qof walba sida uu qabo xeroosaadka waa laydin qaybshay waxaan soo gelin doonaa ajandada dambe in laga doodo insha Allah may waa lagu furay qaybin way maanta walaalo waxa weeyaan maalin baan u furay maanta qaybin way raalli ahaa hadda hadda rabtaa ma isniinta waa la soo gelinaya ahlu saad maanta ma wixii aad ka qabto goorteeda lagu fura xildhibaan raalli ahaa si amal waayis aan u yeerno aan ajandadeena ku socon ajandada aan ku socono raalli ahaa aan u yeero wasiirka amniga akhrinta koowaad ee la dagaalanka akhrigiisa ay labada dhinac israaciso ka bacdina aan doodaha furno gudoomiye xildhibaanada sharafta leh aan dhageysano wasiirka raalli ahaa mahadsanid gudoomiye mar kale gudoomiye xildhibaanada sharafta leh shaqaalaha baarlamaanka bahda saxaafadda ciidamada ilaalada baarlamaanka waxaan ku salaamayaa salaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xeerka la dagaalanka argagixisada mudana gudoomiye mudanayaal wasaaradda amniga iyadoo xaqiiqsan in argagixisada ay halis ku tahay xasiloonida Soomaaliya sareynta sharciga iyo xaqa muwaadinka uu leeyahay in uu si xor ah ugu noolaado iyo in ay nabadgelyada ay haystaan xaqiiqda argagixisadu waxay halis ku haysaa nabadgelyada gobolka Geeska Afrika iyo tan dunida wasaaradda amniga
iyadoo ogsoon baahida loo qabo in la adeegsado sharciga iyo tallaabooyinka waafaqsan dastuurka si looga hortago in argagixisadu ku fido gudaha iyo meelaha ka baxan Soomaaliya iyo in kama dambays la ciribtiro argagixisada. wasaaradda amniga iyadoo maanka ay ku hayso xuquuqda qofka sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. wasaaradda amniga iyadoo garowsan xuquuqda eedeysano uu leeyahay qodobka 34 iyo qodobka 35 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. wasaaradda amniga iyadoo garwaaqsan in xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta ee hadda jira aan waxba yaraatee la jaanqaadi karin faldamiyeedka argagixisada dabooli karna baahida loo qabo in laga hortago abuurida ka mid noqoshada fududeynta qaybka qaadashada tababar gacansiinta dhiirigelinta bixinta tababaro ama qaadashada tababaro ku salaysan argagixiso. mudane gudoomiye mudanayaal wasaaradda amniga gudaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku qeexan dastuurka ku meel gaarka ah waxay maanta ay taariikhda tahay 22 bisha November 2017 soo hordhigaysa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed xeerka la dagaalanka argagixisada. ujeedada ugu muhiimsan ee xeerkan xambaarsan yahay waa in lagula dagaalamo argagixisada laguna xakameeyo faldambiyeedka ka dhasha argagixisada iyadoo cadaaladda la horkeenayo argagixisada lana dhowro sareynta sharciga dalka iyo xuquuqda aadanaha. mudane gudoomiye mudanayaal xeerkani wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo ka kooban 37 qodob. xeerkani wuxuu waafaqsan yahay dastuurka ku meel gaarka ah wuxuuna la jaanqaadayaa qaraarada dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada ee ka soo baxa qaramada midoobay sida UNSRC 1333 iyo UNSRC 1566. wuxuu kaloo la jaanqaadayaa xeerarka caalamiga ah sida Hague Convention 1970 Montreal Convention 1971 iyo Protocol 1988. sidoo kale wuxuu la jaanqaadayaa Roma Convention 1988 iyo xeerka xakameynta dhaqaalaha argagixisada 1999. mudanayaal faa'iidada xeerkan haddaan si guud uga hadlo wuxuu si cad u qeexayaa waxay yihiin argagixiso iyo fal argagixiso. wuxuu adkeynayaa cadaaladda iyo dabagalka iyo xaqiijinta cadaynta lidka ku ah dambiilayaasha argagixisada. wuxuu sugayaa xuquuqda muwaadinku xaq u leeyahay. wuxuu hoos keenayaa faldambiyeedka argagixisada maxkamadda caadiga ee dastuuriga ah. wuxuu adkeynayaa soo gelitaanka wadanka badda iyo beriga. mudane gudoomiye mudanayaal caad inagama saarna daliilna uma baahna dhibka iyo gumaadka argagixiso ay ku hayso ummadda Soomaaliyeed. dhammaanteen waxaan la soconaa in wadankeena uu ragaadiyay dilal qorshaysan qaraxyo isdaba joog ismiidaamin iyo qalqal gelinta bulshada ummadda Soomaaliyeed iyagoo cuskanayo fikir qaldan kana fog diinteena suuban iyo sharciga islaamka. haddaba si loo meelmariyo tallaabooyinka ku aadan fulinta qorshayaasha lagula dagaalamayo argagixisada waxaa gundhigu ah xeerkan oo aan golaha shacabka sharafta leh ka codsanaya inay si degdeg u ansixiyaan. wabillahi tawfiiq wa maasantiin. mahadsanid. wax oo su'aalo loo jeedinayo wasiirka ma jira fadlan waxaan sameynaa gudoomiye kan kalan ku dara ka labaad soco way xakameynta hubka waa isaga dhan wuxuu ka kooban yahay waa 4 page markuu yiri haday u garato ku dara oo maasta gudoomiye xeerka xakameynta hubka wax dila. wasaaradda amniga gudaha oo tixraac
raacayso qodobka 8aad farqadiisa koowaad a ee dastuurka ku-meelgaarka ah qodobka 99aad farqadiisa a b a iyo e qodobka 120aad farqadiisa koowaad dastuurka ku-meelgaarka ah tixgelinaysa baahida loo qabo in la xakameeyo hubka wax dila si loo xaqiijiyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed wasaaradda amniga iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku qeexan dastuurka ku-meelgaarka ah waxay maanta ay taariikhda tahay 22 bisha 11aad sanadka 2017 soo hordhigaysa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed xeerka xakameynta hubka wax dila ujeedada ugu muhiimsan ee xeerkan xambaarsan yahay waa xakameynta hubka wax dila si loo badbaadiyo loona sugo amniga iyo badqabka muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed mudane gudoomiye mudanayaal xeerkan wuxuu ka kooban yahay 10 qodob waxa uu la jaanqaadayaa dastuurka ku-meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxa uu mamnuucayaa dhoofinta soo dejinta is-amaahinta farsamaynta ganacsiga guud dalaalnimada dheefsiga iyo haysashada hubka sharci darrada ah mudane gudoomiye mudanayaal meelmarinta iyo xakameynta hubkan waa hubka wax dila waxa gundhigu ah xeerkan waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka ee sharafta leh inay si degdeg ah u ansixiyaan waa maashkiin bilaa tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mudanayaal haddii xeerhoosaadku wuxuu qabaa in sharciga la qaybiyo maalin ka hor ama 48 saacadood ka hor haddii la qaybiyo markii ajandada ay ku timaado maalin ka hor oo lagu yiraahdo berito waxaa laga hadlayaa sharci hiblow micnaheedu waxa inaad hore u soo qaadato kii hore soo akhrisay oo saddex qof iyo laba iyo dhowr qofood oo soo ilowday waa la siin karaa laakiin mar walba in la yiraahdo ma haysano hore in lagu qaybshay mar labaad in la daabaco mishkilo weyn waxa loo qaybiyay oo hore lagu sii waxa inaad soo akhriso ka soo baaraan degto marka dooda la galay adigoo diyaar ah in la timaado marka hore loo qaybiyay markii ajandada aad heshaan magacyada iyo shuruucda laga hadlayo leedin sheego hore u soo qaata min fadlakum maadsanid magaca golaha shacbiga dhammaan shacbiga Soomaaliyeed aan ku hadlayna waxaan hambalyo u direynaa sida shacbiga muwaadiniinta ku nool Somaliland sida habboon ay codkooda iyo waajibaadkooda codbixinta ay u guteen hambalyo iyo garabkiisa Allah galo madaxweynaha cusub ee mudane Muuse Biixi oo loo doortay madaxweynuhu hogaamiyo goboladaasi waqooyiga ee Somaliland inuu hogaamiyo madaxweynenimada loogu doortay asna hambalyo aan leenahay hase yeeshee badanaa golaha shacbiga markan oo kale wuxuu yiraahdaa garabkaaga Allah galo tawfiiqna Allah ku waafajiyo aan u yeero wasiirka hadii oo fiirooyinkii oo wax ka dhahay saddex xildhibaan baan ugu yeeri doonaa xogeynta waxaan ka codsanayaa hadal qoraalka sameynaysa inta la yeeri liiskaasi inaad ku soo lifaaqdaan hadal qoraalkii maanta aad samaysan ma la fahmay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulankeena maantana waa loo xiran yahay